السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحاين وحيقة عشرة دي ميليه قدام بيسايان سيان أجمرينا وحنو مرينا حرفك وقدام بيا حروفها قدام بيا ميم إيا نون يوو يها إيا شنت حرفي قدام بيسا أيينو مريدونا إن شاء الله تعالى. أوكي ميم كهو حكمي دي هاي حروف تا كلك سمي كلاميد كستبا حقا وحاين كحيقة وكلك سمية حقا سوكرا وقلولي شنكرا حقا وقلولي شنكرا حقا لفتي كده وقلولي شنكرا لحدي حرف من صورة جيون باو حلو قولي تشنكرينه حروفها أوردن والقولي تشنكرا. أوكي ميم بالي دي بي على ميم كوكا تان كترتيرو. أوكي وحلي دي بي ميم كوغو رياليري طابا كوحيقي سبالي ويري مركز وحكو حيقي الرأبال سيدا هالكان يوغو قران مركز سيقاب كيس قولي تشنية ميم كا سيدا نصوق سيدا حدا وقران يحي طأضنا مركز كلتشي ساو كلتشي وإيضانا ساو تب رأبا كسيحي كيسا مركز رأدي نوطا قاب كسالس كلتشينية. أوكي هدي وميم كو لحدو كتشلو سيئليا وحياليا تصالحان وحاسو قادنا حرف كان قاف با وهريا ليغيري ميم باكو حيقا رأبا كحيقتا كم حاسمين قافكي واتان هرو soo sheegay qaabka loo qorayaa laba dhibcood baa madax laga siinaya hadii hal dhibic ay noqoto faa bay noqonaysaa marka qaafkii faadu waa isku mid qaafka waa in labadiisa dhibcood aan siisaa miimka markuu dhexda ku jiro qaabkana loo qorayaa waa in hagan waa inta yar ee soo dheer inta yar ee soo dheer halkan ah waxaan sameeyaa miimka marka halkan ka yara qalooci miimka qaabkaas u qoraysa wax yar waa ka dhigtaa oo laakiin qaybna hoos u yara dhacdaa qaybna sare hadii kale faabu ka noqon hadad kor ee ka aado faabu ka noqonaya markaas astaradeed waxa weeyaan miimku waa in xaggan hoosna yar way yara dhaca xagga sarna wax weey meeshan ka hadlay waxge line-kan halkan dheer iyo line-kan dheer waa in meeshan yar ee sida ku badaahi qaybna xagga hoos ka tahay qaybna xagga sare wayna ka tahay oo ay simeeyeen saastaraadina raadina ku sii daraysa. Okay markay ugu dambayso qaafka waxa sameeynaya waxa leeyahay miimka waxa sameeynaya qaaf baleeyay waxa qaaf iyo laam iyo miim baleeyay waxa leeyahay isku rakib qaafka saasan soo qoraya laamkiina saasan dhahaya laamka waatan soo dhignay xageedan iyo xageedan way sameeyeen miimkana markaasi halka madax yaraayay baalkii uga dhig saas ugu dhiji qaabkaas la isugu qoraya marka qaabkaas weeyaan horaan u sii socon doona insha Allah taala xarafka xiga waa nuunka horaan uga soo hadalnay waxaan idin sheegay in kiisa ugu dambeeya uu kaga gedisan yahay baada laakiin sidii baada baa loo qoraya waa taawad aragtaan marka sidii baada hadda isu soo eegtid oo casharka dib ugu noqotid oo qaybtii baada eegtid waa qaabkaas la qoraya laakiin baadu xagga hoose hal dhibic ku lahayd kanina xagga sare buu hal dhibic ku leeyahay yaa la isku khaldi dhibicda sare waa nuun dhibicda hoose waa ba laakiin soo qaab weeyaan. Okay waxa la dhiibay nuun iyo miim iyo ra waxa la yiri isku rakib soo qoraya. Okay nuunka saasan soo qoraya miimkana waa tan hadda ka soo hadlayna saasan soo qoraya nuunka hal ilig bas ay soo taagaysa iliga yar ugu horeeyo halkaas dhibic siinaysa miimka saasan ugu dejinaysa raadina wata. Okay markuu dhexda ku jirto nuunku iliga yar bay u taagaysa saasan xaggan waxba ka dhigsamay xaggan waxba ka dhigin kara aynu eegno. Okay waxa la yiri kaaf iyo nuun iyo za. Okay maxaa sameeynaya kaafka markuu ugu horeeyo qaabkaas loo qori jiray nuunka iliga yar baa loo taagaya iliga yar wanigaas ugu taagayana. Okay maxaa ii xigay za baa xigtay zaadana san way raxmaday marka wayna si fiican u qoraa si fiican baan u qoriyaa sug kaafka marka hore san leh nuun baa xigay marka nuunkiina waa ka isku dhijinaya ra'dina wata mazadina
zaada ilig yar baad doonta saa u taagi kartaa dig kalena iska dayn kartaa aduu qaabkaas baad u qoraysaa saas isugu dhejinaysaa okay nuunka hadduu ugu dambeeyo nuunka xagga waxbaa lagaga dhejin karaa xuruufta waxa lagaga dhejiyo ka mid yahay okay maxaan sameynayaa jiim baan ugu horeysiinayaa ba baa xigta nuunka ugu dambeeya nuunka haddaba qaabka yar ee loo qoro kala dardaarmayay waxa weeyaan horta jiimka soo qor ba'diina wataa ilig yar baa loo taagay nuunka waxaa xoogaa yar bas hoos loogu dhigaa xoogaa yar ba hoos loo dhigaa eega haddaba xitaa laakiin ba'da iyo ta'da iyo ta'da lama dhigo waa inuu laynka la sinaa laynka waa in la sinaa oo qaybtan kale waa inaad sidaas oo kale ula sintaa marka intaasay ku kala gedisan yihiin nuunka xoogaa yar unbaad hoos ku yara riixaysaa qaabkaas weeye nuunku marka aynu soconno oo aynu qaybtan nuunka waa dhameeyey haada markay ugu horeyso markay ugu dhexayso markay ugu dambeyso waxaa la yidhi waxay isku dhejiysaa ha iyo ra iyo miim maayo kan ka deynayaa ama kan baa ku qorayaa caadi okay haada qaabkaasaa loo soo qorayaa ra baan ku xijinayaa ra'da waxaa mamnuuc ka ah in xaggan wax lagaga dhejiyo marka miimka gooni baan ka istaajinayaa ra'da mamnuuc ka ah ma aha miimka wax mushkiladiisa ee waa ra'da mushkiladeeda baa waxay leedahay xaggan waxba igama dhegsami karo laakiin xagga haada xigta waxbaa lagaga dhejin karaa okay haadu hadday ugu bartanka ay tahay markay dhexda ku jirto kaaf baa lasoo qoray ha baa ku xijigta okay ha saasaa loo qorayaa fa baa ugu dambeysa maxaan sameynayaa horta kaafkii sidii usoo qor ha'da qaabkaa doontid u qor waa inuu saa usoo eegata fa'da laynkaasi waa ina isla sameeyeen laynka waa inaa fa'da sidaa hal maroo yara maroojisaa waa inaa laynkaa aanad ka dhacsin fa'da dhibiceeda korqasi hoos iyo kaa aadin eeg hataa tanba fa'dan way la siman tahay kaafka halkaas way la siman tahay marka qaabkaasaa loo qorayaa okay haadu hadday ugu dambeyso waxaa loo qorayaa 3 qaabood ama 2 qaab baa loo qorayaa mar waxa weeyaan qaabkaas marna waxa weeyaan qaabkaasaa loo qorayaa okay waxaan qorayaa 2 qaab waxaan qorayaa tusaale ahaan ha iyo ya iyo ha la qoraya ha saasaan soo qorayaa ya-dana hal ilig baa loo taagaa kabacdina 2 dhibcood baa hoos laga siiyaa hadaasi ya-da ilan kuwa wax ku dhigsaman bay kamid tahay saas hada loo qorayaa haya baa qoray Soomaaliyeed saas haddii wax lagu dhejin karo haddii laakiin xuruufihii wowgii iyo daalkii iyo kuwii wax lagu dhejin jiran haddii halkaa yaalaan hada qaabkana loo qorayaa waana ujeedaa qaabkan miyaha oo kale allahu mustacaan miim baan la qoray ya baa lagu xijiyey alif baa lagu xijiyey ha baa lagu xijiyey maanta 4 xab weeyaan marka maxaan sameynayaa miimka saa usoo qor yaadana ilig yar baa saa ugu taagaysa 2 dhibcood hoosta ka sii alif baa halkaa loo qorayaa alif ma loo qoray oo alifkana waa miyaa sama hada haddaba halkaas qaabkaas loo qorayaa waayo alifka ayaa halkana alifkaas wuxuu leeyahay xaggan waxba lagaga dhejin karo marka haddaan alifka waxa xaggan lagaga dhejin karin haadu qaabkaas oo ekaanaysaa okay marka wowga wuxuu kamid yahay kuwa aan wax lagu dhejin karin xaggan waxba lagaga dhejin karo mamnuuc weeyaan xaggan waxba lagaga dhejin karo xaggan waxba lagaga dhejin karo waa mamnuuc markaas daraadeed xarafkan waxaan qaadan doonaa casharkan xiga ayaynu qaadan doonaa insha Allah